Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal soo dhawaada. Waa qaybta saddexaad ee qisadani naxdin jacayl. Daahir waa aboowe, danta lagama xishoodee, dareen baa i helay, daal aan dhammaan iyo diif baa i haysaa, durba nawr baa i helay, dadkii ka go'ay, diida raashinkii, oo daaya cabidii, daayin baa wax daweeye, dabiib ii noqo, dugsimo aan ka helo, daacad baa nahaye, duli ha imoodin, dooqaygaa ku raacee, damacsanaanta warkayga, dareenkiisa lahow, durba jawaab iyo dareenkaaga isii, deetana i galow. Daahir oo ay farxadda ka tanbadisay ayaa waxa uu yidhi, Ilaanay waan dareemi karaa dhibkaada, oo waxaan ahay nin waxgarad ah, balse aniga ayaaba islaha ilaan u soo bandhigo jacaylka ku haya, laakiin afkayga ayaad kala baxday, ee bal markayga iga hano oraahdan yar. Huunay ilhaan, haadda iyo shimbiraha, haybad adaa ka sidatee, hannaankaaga wacan baa, halbowlaha i gooyo, hurdo waan ka quustee, hudhudka iyo shimbiraha, haatif iigu sheegay, haddaad aragto ilhaan, hamuuntaada caashaq iyo hammigaaga u sheeg. Hidihii dhaqankaad huunay sidataa, ha ii jabin nacabkee, hiil ii noqo abbaayo, hadalkan odhan lahaa, hoosta adaa ii dhigtee, huunay waanba kaa helay. Intaas kadib Daahir waxa uu aaday tuulada, waxa uuna tuulada ku arkay kuul aad u qurux badan, kuushii ayuu soo iibsaday. Intaa kadib Daahir waxa uu yimid gurigii, waxa uuna iska dhigay raashinkii. Daahir waxa uu si halhaleel ah u soo aaday ilhaan oo ay ballansanaayeen inay maalin walba kulmaan, maadaama ay yihiin lamaane cusub, isla markaana aan sina u kala maarmin. Ilhaan iyadu waxa ay fadhisay geed qurca hoostiisa oo ay ku sugaysa wiilka Daahir ahaa, iyadoo isleh talow muxuu ku soo dahay, ayaa mar qura korkeeda waxaa ka yeedhay gacaliso ii waran. Waad iga nixisay iga tag ayay tidhi, bahal ayaan kuu maleeyee. Abbowe maxaad iga soo dahday, ma ogid miya inaan maantoo dhan murugaysanaa, maanta waan iska sabraa, laakiin maalin kale sidaa ha yeelin. Daahir ayaa yidhi, maya macaanka ee maxaan kuu keenay bal fiiri. Ilhaan oo intay faraxday dhulkuna la yaraaday ayaa waxa ay tidhi, alla sow kuushii 20 shilin joogto ma aha, oo maxaad lacagta intaas le'eg igu khasaarisay. Daahir ayaa yidhi, saas ha ii dhihin abbaayo, kuul iska dhaafay waxaa iga mudan tahay in aan noloshaydaba kuu hibeeyo dhammaanteed. Ilhaan ayaa tidhi, abbowe kuushan waxaa ii gedi rabay hadda ka hor walaalkay, balse hadda ma hayo walaalkay oo waa uu dhintay, waana markii iigu horreysay ee aan kuul xirto, marka waxaan kaa codsanayaa in aad gacantaada igu xirto, maadaama aad tahay qofka kaliya ee aan dhibka ugu jeclahay. Daahir markii uu kuushii u xiray ayay gacanteeda marisay qoorteeda, kuna tidhi, waa markii iigu horreysay ee qoorteeda lagu xiro kuul, waayo ilaa iyo markii aan wax gartay meelan qof i daryeela oo wax ii qabtaa. Ee Daahir abbowe, gacmada xaadda leh markaad luqunteeda saartay, jidhkayga dhammaantiis ayaa muxibbo kuu jaleecay. Ee Daahir weligaa jacaylkeena saddexyo ka dhowr. Intaa markii ay tidhi ayaa Daahir waxa uu ku yidhi, taas waa waajibkayga iyo danteena inaan ilaaliyo jacaylkeena. Intaas markii ay xaajo marayso oo la isla meel dhigay in la is arko maalinta berri ah, ayaa waxaa yimid oday guure. Markii uu arkay wiilkiis oo la fadhiya gabadhii oday Cali, aad ayuu u xanaaqay. Xanaaqiisuna wax kale ma ahayn ee waxa uu wiilkiisa la rabay gabar uu dhalay walaalkiis Garuun ee la yiraahdo Hani. Isla markiiba oday guure waxa uu soo aaday gurigii. Daahir markii uu soo dhammaystay hasaawihii macaanaa ee uu la hasaawayay gacalisidiisa Ilhaan, ayuu soo aaday gurigii. Markiiba aabbihii ayaa yidhi, ha iga siinin wax raashin ah, waayo waxa uu ka tallaabsaday go'aankayga adkaa ee ahaa inaan ku daro Hani, oo weliba uu bilaabo inuu la hasaawo gabar aanan ka dhalan reer hanti leh oo ka dhalatay reer faqri ah. Aahey, waa haddii aan yeelo. Daahir waa aniga iyo adiga ninkii rag ah oo uu go'aankiisu shaqeeyo. Daahir oo intuu naxay, niyadduna ka jabtay, murugana la diristay, isagoo aan marna ka maarmin jacaylkiisa, aana diidi karin go'aanka aabbihii, ayaa waxa uu yidhi, laakiin aabbe, sidaad mooddo waxba uma jiraan. Aabbihii ayaa yidhi, war iga aamus, nacas baa tahe oo waxba aan garanee, waa inaan taar qabadsiiyo Garuun oo aan ku idhaahdo gabadhii wiilka waa inaan isku guurinaa maalinta Jimcaha ee soo socota. Oday guure intaas kuma ekaan, waxa uu u tagay Ilhaan aabbaheed Xaaji Cali, isaga oo ku yidhi, waryaa Xaaji Cali, gabadhaada mar dambe haddaan ku arko wiilkayga agtiisa wixii ka dhaca adiga ayaa mas-uul ka ah. Xaaji Cali oo yaaban ayaa yidhi,
oo maxay tahay dhaarta kaa baxaysa dad deris ahna waa nahaye. Oday guure ayaa waxa uu daba dhigay Xaaji Cali, war iyo dhammaantiis, wiilkayga waxaan u rabaa gabar aan adeer u ahay, ee dareenkaadu ha shaqeeyo, haddii kale waad ogtahay waxa dhici doona. Markii uu baxay Guure ayaa Ilhaan oo isla maanta arrintiinii ayuu u yimid oday Guure, ayaa tiri, Aabe maanta Guure waa soo dheeraadee maxaa dhacay? Xaaji Cali ayaa yidhi, Aabe waxba ma ogid, maandhay Guurena halkan uma iman samaan, ee waxa uu iigu yimid inuu i ogeysiiyo inaan gabadheeda ka rabo wiilkiisa Daahir ah oo uu la rabo gabar kale. Marka Aabe isaga har wiilkaas, waayo waxa uu yidhi, haddii aadan gabadhaada ceshan wixii dhaca adiga ayaa mas'uul ka ah, mana rabo inaan ku waayo, waayo adaa indha ii ah oo dad kale ma haysto. Ilhaan ayaa tiri, waayahay Aabe, wiilkiisana waan uga harayaa haddaad adigu go'aansatay. Xaajiga ayaa yidhi, khayr Allah ha ku siiyo gabadhaydii, ee orod Aabe farasta biyo sii. Ilhaan faras inay biyo siiso warkeeda iska daaye, dunidu ku yaraatay, wax ay sheegtana garan la', ayaa waxa ay ku calaacashay erayadan: bi'i waa adduunyay, baahidayda jacaylko, beerkayga dhammaan iyo bogga aan ku haystaa, baadi iga noqotay. Berigaan go'o birtu igu dhacdo, badbaadaan sugayana baylaha iga noqotay. Bashaashkan jeclaa beerkayga siiyaa, bariga la ii diidee, boqorow Ilaahow badbaado ii sameey.